Assalaamu calaykum asxaabta, waa walaalkiin Axmed. Waad horey ugu barateenba inuu idinla wadaago waxyaabaha ku saabsan tiknoolajiyada maanta aan isticmaalno. Haddii aad tahay qof nagu cusubna, kanaalka subscribe noo saar. Mahadsanid. Muuqaalka caawa wuxuu ku saabsan yahay Facebook Remembering. Maalmahan Facebook waxaa aad u soo badatay in qofka cinwaankiisa loo diiwaangeliyo inuu dhintay, kadibna cinwaankiisa sidaas loogu xiro. Marka anigana waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo sida looga hortagi lahaa Facebook Remembering. Ila daawo muuqaalkan. Soo kici Facebook-kaaga, gudaha u soo gal meesha sare ee menu 3 dhibic. Hoos u deg Settings and Privacy. Settings meesha laga maamulo Personal and Account Information. Meesha sare hoos Account Ownership and Control. Meeshana laga maamulo xogtaada. Haddii aad rabto akoonkaaga Facebook inaad iska delete gareyso xitaa halkan ayaad ka heli kartaa. Meesha sare Memorialization Settings meesha hadda aniga u baahanay. Meesha hoosena waxa waa deactive iyo delete hadda u baahantahay cinwaanka inaad ku sameyso gebi ahaan baad habada ka saarto. Laakiin ana hadda waxaan u baahanahay meesha sare ay ku qoran tahay Memorialization. Bartaas ku dhufo. Kadib waxaad leedahay Choose Legacy Contact. Qofka aad rabto inaad ku xirato cinwaanka. Kadib marka lagu diiwaangeliyo inaad dhimatay oo cinwaankaaga sidaas lagaaga xiro, qofka aad dooratay wuxuu awood u yeelan doonaa. Marka lagu diiwaangeliyo inaad dhimatay ama cinwaanka sidaas lagaaga xiro, qofka aad dooratay wuxuu awood u yeelan doonaa inuu maamulo cinwaankaaga, sida inuu bedeli karo profile-ka iyo sawirka ku saaran cover-ka. Sidoo kale inuu aqbalo saaxiibadaada cusub iyo qofkaas inuu cinwaankaaga dalban karo in habada laga saaro ama report u gudbin kara si uu adiga ku caawiyo. Marka si aad u doorato qofkaas waxaad leedahay next choose friend halkan ka dooro. Qofkaasna ha ahaado qof xiriir idinka dhexeeya sida saaxiibkaaga ama walaalkaaga. Hadhow si aad ula xiriirto kadib marka laga xiro cinwaankaaga. Anigoo kale Axmed Salaada doortay waa mid saaxiibkayga ah. Okay dheh. Waxaa kaloo jirta fariin optional ah taasoo ugu dhacaysa qofka aad u dooratay Legacy Contact dhanka Messenger-ka. Waxay ogeysiinaysaa qofkaas inaad u dooratay Legacy Contact-kaaga. Qof kalena waad ka dhigan kartaa oo iska bedeli kartaa midka hadda dooratay. Haddii aad rabto inaad iska bedesho, meeshii hadda ku laabo Memorialization Settings, kadibna Remove iska dheh. Marka u baahato qof cusubna isla same way wadadii hadda aad maraysaa Choose Legacy Contact, kadibna search dheh qofka u baahan tahay ee asaga ku xiro. Qaabkaas ayaadna uga hortagi kartaa Facebook Remembering. Muuqaalkan intaas ayuu ku eg yahay.